caddaan oo Mareykan oo waliba qaar Itoobiya ka aan jirin safiir ay ugu yiri ma Soomaali ba Itoobiya joogta Eritreanka waan garanaynaa Soomaalidu ma warrantaa ha way warrantaa iyada isku warrantaa ee waxa la sheegaa sheekadeenu sa inagu jecelnahay waxaan horta lugaha naga si fiican u istaagno aanan noqon qabaa'il ku heshiiyeen nabadda yarta haystaan laakiin vision ina yeelano vision fog haddaan doonayna identity gaar ah inaanu yeelano taa waa inaan magaalada qaadano hawada mid lama nihin deegaanka Soomaalida wallahi in short waxaan xasuustaa YouTube-kana ku jirta dad eegto warays laga qaaday meel Israel Jazeera 2010 wax la weydiinaya waaya xamar aadeen oo u gashay marka xoodhanay xamar waxaan u tagnay islaamiyiintan wada socda inaan qolo walba identity-googa iyaga siin u fiirso waliba caawada ay kartaan inay qolooyinka jaadiinta la socdaan nacaminaan kala saarno radical and moderate operation qura marka in identity-googa siino wad garanaysaa marka in wixii halkan laga sameeyay strategy la xamar la socotay maanta maqaalka markaan akhriyay waxaan sii negative negation baad samaysaa moogta hegeliyanka moogta mad naqdiyada ama saqa positive moogta marka fawsiya si fiican u naqdisay laba qodob ma ku dari lahaa mid positive yahay laakiin mid background yahay isagu taa ka duulayo waxa weeyaan Ethiopian studies iyo Somali studies sida ku samaysmeen oo labadooduba undi ku ah imperialism Somali studies kama dhex bixi karo imperialism way category aynu ku akhrino indhaha aynu ku akhrino Soomaalida kuweyna wax bartay anna kamid ahay waxa marar badan xasuusteena fog galay iyaga moogta mesela mar waxaan hastaayna saaxiibna ka sheekaysanay war isteeriya kitaab waxa la yiraahdo desert flower Soomaali weligood dhulka desert uma yaqaan qofka Soomaaliga geel jiray dhulkiisa jooga weligood desert uma yaqaan wala xilli roobaadka iyo isbedelka u yaqaan concept desert hadaad u aragto waa concept colonial ah marka isagu tuu naqdinaya background-ku waa yara muhiim Somali studies iyo Ethiopian studies oo labadooduba tan imperialist Ingiriiska iyo Talyaaniga ay sameeyeen qaabka loo arkay Soomaalida iyo dadoo kale is hayaan moogta iyo Ethiopian-ka moogta laakiin positive kan eegaya waxa weeyaan isagu aan ku dari lahaa in bal laga yimaado maadaama subalternity-ga la eegayo dadkan cabursan ee sheekadooda la sheegay dumarka moogta waayo aabahay markaan la sheekaysto iyo markaan hooyada la sheekaysto xataa waa laba sheeko kala duwan waa Soomaali waa tol way isqabaan more or less duruuf isku dhow bay ku koreen laakiin waxaan dareemaa waaya aragnimada nololeed ay marayni kala duwan tahay moogta oo more or less sheekada waa aabahay ka sheekaynayo inay tahay more isagoo qof intellectual wax bartay marka qaabku wuxuu sheegay laakiin dareemayso more mesela afkooyu ka sheeganay dhawaankii markii balan balaya SDF tay soo gashay isagoo surveying u sameynaya kadib marka ciidamadii dawladda ay conscription sameeyeen dadka in la ciidameeyo moogtahay la qabto oo wax ka sheekeynaya nin deeraleyda inagu jareerta aanu naqaan maclas fashadi oo le waaryaaraha warwaaside waar waxa weeyaan gabadhina fool bay ga ahayd xoolii meel baan ka cabaaday moogtahay anaguna la xidhay anu waxaan ogaa buuri in la report garan doono engineerkii surveyga waday baa la qaaday marka la iska soo degi doono marka not only Tobias ku saxsan yahay way in la dhaafo aragtida tasare ay ka sheekaysay oo la eego classka iyo race-ka moogtahay la eego mesela genderka oo sheekada hooyadii ka duwan tahay moogtahay markay lawya cadda ka sheekaynayso ciidamada Soomaaliya waxa ka qabsanaya iyagu Djibouti ka imanaya marba in qaab ku sheegaysan garanaysa in ciidamada xuduudda jooga lawya cadda iyo ciidamada Djibouti Francisco maamulaan difference weyn jira marka iyadu kaaga waramayso moogtahay marka in inda ka fog lagu eego marka laga tago runtii siyaasadda ugu muhiimsan tahay waxa weeyaan in inda ka fog lagu eego taariikhda dadka codkooga aan la maqal oo marka ay kamid yihiin dadyoogaas moogtahay marka taan laha waxa in qaab cusub loo eego marka aan ku raacsanahay ugu dambeynta kusoo gabagabeynaya qodobka foosiya ahayd iqaabal inda ka duwan indheeni hore lagu eego nolosheena marka horta markaan leenahay Soomaalidu ma warrantaa ha way warrantaa iyada isku warrantaa ee waxa la sheegaa sheekadeenu sa inagu jecelnahay walibana iyadoo dumar la iyadoo rag la iyadoo danyar la ma gaadha akademiyada ma gaadho marka dooda imirisa maxay ku soo gaari weyday marka waxa ka si fiican u sharaxday
foosi oo mashaakilka boqolka sano ama soo socday deegaan ka dhacay ay ka muuqato moogtahay marka ta muhiimka hadda waxa weeyaan oo de positive noqonaysa waxa weeyaan maxaynu haysanaa agab markaynu ka fikirayno in dhac cusub ku eegayno marka inaan la orag misalan qaabkii Soomaalidu isku daweyn jirtay tradition-ka ahaa ama cilmi falaga ahaa ama ahaa haddii la ku rooyahay xidigiska ahaa in loo waa irrational waxani waxba kama jiraan dhakhaatiirta inta badan mushkiladaas way haysataa moogtahay oo modern medicine baa la dhacsan yahay moogtahay oo misalan patient-ka in loo arkayo organism ka kooban yahay isagu sheekaysa waxba nagama gelin beliefskiisa waxba nagama gelin marka waxa weeyaan inaan soo aragno symptoms kan akhrino dawada aan qorno marka qofkii laga dhigay mute aan sheekadiisa sheegan karin moogtahay markaynu ka soo dhaadhacraan ma siyaasada moogtahay oo speak waxa soo galaysta patient-kii moogtahay qofkii dhakhtarkii uu istaagayo moogtahay marka waad mahadsantihiin waxaan rabay inaan qaab positive aan u eego naqdiga la yara dhaafo qaabka siyaasadda culture-ka la falgalo waad mahadsantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim hadalkii sida muuqata waa la soo koobay maqaalkan horta anaa waa dhexdaas intaan arkay ma arkin maalintii meesha laga soo jeedinayay waan fadhiyay waxaan yara dareemay marka ninkii inuu si toos ah noo challenge gareynayo wuxuu ahaa speech hadal uu soo jeediyay oo macad cilmi baaris uu kala haabo ahaa ma in marka warqad uu si fiican intuu soo baaray dabagalay si uu meesha ka shiido maahay marka shortcoming-kaas uu ku jiray laakiin si guud markaan anigu eegay waxa uu ka hadlayo anoo meesha taagan baan horta dareemay inaan guilty ahay because wuxuu nagu eedeynayaa inaan taariikhdanada aanan qorin inaan waxa anaga aan sheegi karin inaan nahay dad la represent gareeyo aan ayagu is represent gareyn karin waxaas oo dhan wada in badan oo kamid ah waa dhab inkastoo power relations iyo dad la gumaysta la soo dhibay dhibaato loo geystay yihiin wax badan waa soo analyze gareysan aniga laakiin dhinacankayga waxa weeyaan taariikh gooni noo ah distinct history ma leenahay dhinacaas aniga eegaya taariikhda uu leeyahay Somali nationalist perspective ee wadaniyada ku saleysan Soomaaliya ma namatali kartaa qayb ma ka nahay arrintan dood baan ka qabaa Soomaaliya ku dhashay dabcan waxaan haystaa perspective laakiin waxaan aaminsanahay inay jirto taariikh wadani ah oo halkan oo local ah asaga laftirkiisa wuxuu leeyahay marka ciidamada Soomaaliya soo galeen calankoodii taageen waa lagu qabsaday meel bisaa ka leeyahay dhagaxbuur nahayd baan u maleynayaa waxa leeyahay maxaad ugu taagteen Soomaaliya markii hadlayso ee gobolkan ka hadlayso waxay dhigi jirtay waxaan xoreyn dadka Soomaali galbeed yaa codkooda laga qaado officially meena dhahaynin muxuu ahaa waddan soo qabsanayna marka historiography-ga Soomaaliya ee wadaniyada ku saleysan Soomaaliya ee dhulka Soomaalida in la soo celiyo taariikh ka yara duwan inkastoo walaalaha anaga ahayno oo u baxsanay markii dhibaatada ugu dhacday nacaawiyeenna ma leenahay oo anaga gooni noo ah tii Axmed Gurey dib ugu ma noqonayo modern times buu ka hadlaya ma ogtahay taariikhda markii aanu WSLF dhalinyarada halkan ka qaxday ay sameeyeen xoreynta Soomaali galbeed Western Somali Liberation Front waxay isku dayeen inay ka jawaabaan wax gooni ah meesha tii markii haddana ay xogaa geographic problem gashay Western Somalia gashay dhalinyaradii kale ee kacday ee ahaa ururka dhalinyarada xoreynta Soomaali galbeed oo qayb u ka yahay Xuseen hadda nala joogo waxay yiraahdeen waxaan galnay geographic dilemma galnay gobolkanaga Soomaali galbeed lama yiraahdo ogaadeen baa la yiraahdaa magacan gumeysigu bixiyay yiraahdeen si aan u xorowno waxay dhaheen magacii lagu bixiyo waa inaan raadinaa oo way jirto ogaadeen yahay way ku soo halgameen charterka oo laftay ku qoran tahay halkaasaan xuduud kala leenahay halkana xuduud kala leenahay halkana xuduud kala leenahay waxay damceen dadkan in aftina laga qaado ayaguna codkooda ay dhiibtaan isku day bay sameeyeen baa la oran karaa tacaadka laftirkooda isku day bay sameeyeen qoraallo way jiraan wax laga qoray bugaag qaybta Carabiga jira Sheekh Ibrahim Abdullah kale buug qoro Tuhfatul Awfiya la yiraahdo Carabiga jira way badan yihiin waxa jira Arabic tradition oo deegaanka laga qoray markaan dhinacan ka eegay waxa weeyaan taariikh noo gooni ah oo aan leenahay oo modern ah ma jirta anu waxaan aaminsanahay inay jirto tan uu nagu challenge gareynayna ay sax tahay inaan ka jawaabno taariikhdii hore markuu leeyahay waxa deegaanka wuxuu ahaa repeat circle of meel soo noqonayso dadka lagu dhigo waatii Axmed Gurey waatii ka dambeysay mar walba intii la qabsado dadka la dhibay laakiin wali agency-gooda ma yeesheen ayagu ma isku hadleen awoodooda gacanta ilaa waxaan waa power relations ma ogtahay hadda inaan meesha ku wada joogno waxa ka turjumayso isbedelka Itoobiya ka dhacay iyana ayagu isku mashquuleen hadda anaga marka waxaan xaq u leenahay inaan dhahno war maanta maxaan ka hadli karnaa waxaan xor u nahay marka taariikh waan lahayn waagi dawladda la sameeyay waa la isku dayay haddana TPLF dagaal baa lagala horyimay wixii ka dambeeyay wax badan baa dhacay ilaa hadda way socotaa muwaadinka Soomaaliga halkan ku nool
wuxuu la nool yahay geography cadidan buu la nool yahay calamaa ka taagan iskuulood baa ku yaala taariikhaa lagu dhigaa waxbaa lagu meeshan marka waxaa weeyaan marka dhinacan uu ka eego waxaa weeyaan exactly hadiiba Ethiopia ay dhibaatadeeda sii socoto ama dee waddanku kala baxo Soomaali consciously isku xiran oo wadaniyiin ah oo dalkan ah oo wuxuu gooni u hanan karta ma la heli karaa oo taariikh gooni ah samaysatay anigu waxay la tahay waa la suurtagal waxaan naga hore ka tagi mayno saas leeyahay waray baan ku dardaraya moogtahay laakiin waxaan leenahay anagu I'm Somali first moogtahay ileen Jawaar Maxamed markii la weydiiyay markii hore Ethiopia amisnaa markii dambe wuxuu yiri Soomaali baan ahay yiri Soomaa adoo Soomaaliya haddana haddaad Ethiopian context awoodaada lagu xushmeynaya aad hananayso oo leedahay wax ku diidaya ma la Ethiopian policy aad ka mid ahaato tiraahdo wixii dhacay way dhaceen laakiin hadda aniga operation dambe ma ogolaanayo xaqayga gacantan ku dhigaya anoo Soomaali ah oo xaqayga haystaan ka mid noqonaya haddaan ka mid noqon waayna dhacbaan ugu digaya taariikh noocaas inay samaysanto anigu way la tahay the other one and dhinaca kale kayga waxa weeyaan identity wuxuu isweydiinayaa waagan oo left ku jirnay ayaa maalin aan oo ardayda ogaada youth Somali oo ay suuday anoo muxaadaro meel ugu jeedinayo 2011 ayaa waxa igu soo dhacday horta who am I ilaa marka calanka on left ku dagaalamayay Soomaa on left waxay ka timid WSLF Soomaa waa taariikh soo waxaynaysa waxa isweydiinaysaa marka muwaadinka Soomaaliga halkan joogo hadii caadi loo weydiiniyo waxa taa dil u yiraahdo Ethiopian bana ka oran maayo ya Soomaaliyan hayna ka oran maayo meel vacuum ayuu ku dhex jiraa oon caddayn wali marka waxaan aaminsanahay taariikhda annada goonida noo ah uprising-kii gariga la sheegayo dadkii odayaashii meeshan kaarmarda lagu raayay isku daygii in lagu xoreeyo lagu talagalay dadaalkii on lefta waxaasoo dhan waxaan wada leenahay oo annaga gooni noo ah laakiin geographically specific to this region ah inaan ka dhigno saas ay la tahay waan ka baxay ku dheeraada runtii aad baad mahadsantihiin maadaama chance labaad helay qodob markii hore ugu muhiimsanaa oo waqtiga dhacay Arabiyada salafisana waqtiga kaga faa'iideysto su'aasha waxa aad narrative ku badbadnaa Muqdisho iyo Addis Ababa Soomaali galbeed iyo bariga Ethiopia marka Soomaali galbeed leeyahay waa marka perspective Muqdisho marka la joogo weeyaan marka bariga Ethiopia la radana waxa la joogaa Addis Ababa marka labada mid ma nihin deegaanka Soomaalida walahi in short marka su'aasha si toos uga jawaabo dhinaca kale dooda lafteeda waxa ku jirtay Soomaaliya ayaa inay taageerisay Soomaaliya sugnaa Soomaaliya marka wax noqonaynaa waxaad moodaa hadallada soo dhan maadaama dadku iska dharyar yihiin wadci badan ayna u soo joogin inay tahay wax ay dhaxleen inay su'aashaasi ay keenaysaa moodaa runtii inagu haday wax noqono walaaladeen Soomaaliya waxaan tari karnaa inaga wax tari karnaa maanta iyagana wax ka sugna maaha 30 sano burbursan yihiin 30 sano ay dawladda oo rasmi oo la xisaabtamo oo maanta la oran karo wadii Soomaaliyeed baa hanata ayna lahayn marka dad iyagiiba intaasoo sano burbursan haddii aan sii daba fadhiisano waa nasiib darro halkii inagu aan iyaga wax qaban lahayn aniga aanu taageeri lahayn deegaankan dalka Ethiopia dan soo noqon Soomaali iyo Tigray marka la yiraahdo waan garan karnaa Soomaali aad uga badan qoomiyad marka la yiraahdo dalka Ethiopia waxaan nahay qoomiyadda saddexaad Amara iyo Oroma kale naga badan deegaan ahaan marka dhul la yiraahdo deegaanka ugu ballaaran dadka noocaas inagoo ah Tigray oo inaga yaraa yaa waxa uu sababay awood u yeeshay geeska Afrika oo dhan ama Afrika oo dhanba inuu magaranay in reebaadiyo oo Tigray waxa uu yiraahday oo Afrika oo dhan ka dhaqan galan taas that means marka iyagoo Tigray kaliyaata oo Tigray iyo Ethiopia awood inta leeg ma yeelanay Ethiopia oo dhan ay maamuleen way hageen xuduudii Ethiopia kii nacba iyo kii jeclaaba iyagoo isticmaalaya yaa xaq waxa u yeesheen iyagiina Afrika iyo geeska Afrika ay mar walba ka taliyaan haddii loo baahdo Afrika talmatala waxa matalay Ethiopia Tigray waa sii matalay Tigrayna inta uu ka yahay Ethiopia waan garanaynaa marka fikradda inaanu cid kale wax ka sugno oo cid kale sii jaleecnaa runtii waxaan oran karaa arrintaas aan ka tanaasulno inagu khayraad ahaan marka waan isku filannahay nolol ahaan waan isku filannahay dhinac kasta taariikh ahaan waan isku filannahay taariikh ma qoran karnaa marka horan ka soo jawaabo haa baan nidhi sida loo qoran waxa laga yaabaa in isku khilaafo waa suuragal qaabkii loo qoran lahaa halkii laga bilaabi lahaa waa isku khilaafi karaa laakiinse taariikh ahaan waan isku filannahay deegaan ahaan waan isku filannahay dhaqan ahaan iyo wax walba waan isku filannahay aaminsannahay inagoo marka 110 Ethiopia milyan ee Ethiopia kamid ah oo isticmaalayna xuduudeedii walaaladena wax tarno marka aan bayaguna waxay noqon karaan magacana de kulli adeerkan ma fadhiyay anu deegaanka Soomaalida oran lahaa arrintan magaca runtii waa in badan baa laga hadlay waana maartay waxa iska noqotay dilemma ina haysta xaqiiqatan waxa haddaad jawaabto aan soo koobo haddaan doonayna identity gaar ah oo East Africa gaar inaan noqono inaan ogaadeen qaadano
wax taa dhaafsan ma jiro. Haddaan doonayno identity gaar ah oo East Africa unique ah inaan qaadano, laana magacyada Africa oo dhan isticmaalka ordud bixiyay. Isticmaalkana ama qabiil ahaan buu ugu bixinayay, sida masalan Uganda Baganda ahayd, ama geographic name buu ahaa oo buur ama webi ama waxbuu ugu bixinayay. dal Afrikaan oo magaciisa isaga la baxay waxaan u maleeyaa waa very rare. Isticmaalkii la joogun baa bixinayay whatsoever. Marka Ingiriis kuma maya Ingiriis xitaa ma bixinin. kuwii dhulmareenka ahaaba waxa ugu horeeyaan u maleynayaa kii Faransiiska ay dhulmareenka ahaaba ugu horeeyaan u maleeyaa wax qaro oo qabiilada intuu marayay, marka qabiilka yaa tihiin ogaadeen yaa soo socday, marka dambe wuxuu yiri wadankii ogaaday ogaadeen. ala kulli xaal aniga waxaan oranayaa aniga oo waliba ma aragtay garanaya xasaasiyadda ay leedahay oo ma aragtay dareemaya oo ma aragtay inuu magac qabiil yahay oo ma aragtay, laakiin haddaan doonayna identity gaar ah inaanu yeelano in East Africa ama Ethiopia gudaheeda aato ama hata waa inaan magaalada qaadano. haddii aan doonayno inaan ma aragtay wax kale aan ku midoobayno Soomaaliya oo dhan aan ku midoobi karnana kan wasiirkan qaadanayna deegaanka Soomaalida oo intaas ku soo koobay. bismillaahir rahmaanir rahiim. kulli buuga aad baa loo falanqeeyay kuma noqonayo, laakiin ujeedada maaragtaane waxaan u jeedaa maqaalka ayaan rabaa in fikir ka dhiibto. ujeedada waxaan u fahmay dadka Soomaalidu isagoo magacoodana ha u bixiyay in ay taariikhdooda qortaan. taariikhdaas waa laga maarmaan inaan qoranno. marka habkeen u qorannaa su-aasha baan rabaa inaan fikir ka yar dhiibto. laba habba inaan u qorno ayaa laga maarmaana oo muhiima. ta koowaad waxa weeye xiriirkii ay Soomaalidu la lahayd dawladihii kala duwanaa Ethiopia soo maray inaan maaragtaan wax ka qorno waa laga maarmaan. taas markaan ka hadlayno xiriir inta badan maaragtaan ay dagaal iyo waxa ku saleysan buu u badnaa. dhibaatooyin la noo geystay baa jiray, iska caabin baa jirtay. marka waan u baahan waa laga maarmaan dhibaatooyinkii la noo geystay inaan qorno, inaan taa kaliya ku koobnaano maahine halganadeennina inaan qorno. haddaan ku koobnaano dhibaatadii la noo geystay kaliya waxay saameyn u keenaysaa jiilka dambe oo markaa fikir ah waxay ku abuuraysaa inay dadkani yihiin dad mar walba laga adkaado oo markaa dhibaataysan oo waxba iska caabin karayn. marka inaan qorno inaan taariikhda oohinta la xidhiidho inaan qorno maaha, dhinaca kalena inaan qorno weeyaan halganadeennii iyo maaragtaanay noocay doonaanba ha ahaadaan iyo guulihii laga gaadhay. taas waa mid kaloon u baahannahay baa jira. dadku way ku kala aragti duwanaanayaan, waxaana laga maarmaana kala duwanaanshaha aragtida in la ixtiraamo. midda labaad een u baahannahay inaan qornana waxa weeye dawladdan Ethiopia maabkan hadda jira in la sameeyo ama dawladda Ethiopia maaragtaan dhismaheega Soomaalidu maxay tahay qayb libaax bay ka soo qaateen oo waxaa jira dad ka soo maaragtaan ay ka qayb qaatay dhisidda dawladihii Ethiopia ka jiray. kuwa laftigooda taariikhdooda waa inaan qorno. anu saasaan aaminsanahay labada dhanba inaan qorno waa laga maarmaan. tusaale ahaan waxaa jiray shir lagu qabtay magaalada Paris dalka Faransiiska 1946 shirkii nabadda ayaa lagu magac daray. shirkaas wafdigii Ethiopia ee ka qayb galay waxaa ka mid ahaa laba nin oo Soomaaliya. shirkaas Ethiopia waxay ku doodaysay in Talyaaniga looga qaado magdhow gaadhaya 40 milyan. waan ognahay Talyaanigu mar labaad buu ku soo duulay Ethiopia, wuxuu haystay 5 sano 1936 ilaa 41. marka Ethiopia waxay ku dooday in maadaama Talyaanigu dhibaato badan u geystay in magdhow 40 milyan oo dollar la siiyo. ugu dambeyn Ethiopia waxaa loo xukumay 14 milyan oo dollar baa loo xukumay. dadkii marka wafdiga Ethiopia qaybta ka ahaa waxaa ka mid ah Sheekh Umar Azhari oo reer Raba ahaa iyo Xaaji Faarax oo reer Jigjiga ahaa yaa qayb ka ahaa dadkaas. waxaa jira maaragtaanay waqtigii Minilig inaad maqasheen way dhici kartaa. habeenkii dadka ammaanka magaalada Addis Ababa suga Soomaali bay ahaayeen.
adsaa waxaa ku batay marka dilkii dhibaatadii maadaama dadku ay sakhraamayeen oo khamriga wax cabayeen waxaa batay isdilkii baa batay Soomaalidu maadaama ay khamriga wax isticmaaleen waxaa la keenay dad Soomaaliya ammaanka magaalada iyaga sugayay 9 habeenimo markay gaadho waxbay afuufayeen markaas la oran jiray Soomaali joohe marka qof walba maaragtay aqalkiisa ama gurigiisa u galay qofkay qabtaana way xidhayeen ganaax lacagna waa laga qaadi jiray dad badan oo markaa ka qayb qaatay baa jira dhismaha dawladda Itoobiya Colonel Daahir baa kamid ahaa oo dawladda xiriirsaris ka tirsanaa waxaad ogtihiin Cumar Samatar oo loogu magac daray dugsi Adsaaba ku yaalay oo markaa dugsi hoose ahaa hadda wada ku dhacday waa la dumiyay ku kala dugsi sare loogu magac daray haddana wado maaragtaanay wadooyinka magaalada Dirraba kamidana waa loogu magac daray Colonel Daahir wuxuu kamid ahaa meesha madrasada ama hadda waa college baan u maleyn awaliye loo yaqaano ay muslimiin badani ka soo baxeen maadiya diiniba lagu dhigo ninkii dhulka qabtay buu ahaa dhulkaas ay ka dhisan tahay meeshu sidoo kale fanaankan Orome Ali Birra loo yaqaano waa la xidhiidhi jiray inta badan dawladdu aad bay u dhibtay iyadoo dawladdu ay saa u xidhayso ayuu qaaday wuxuu ku daray ciidamadii ilaalada ee boqortooyada Xali Salaasi ayuu ku daray saas ay u dhigirnay Soomaalidu marka waxaan ka wadaa labada dhanba in la qoro waa laga maarmaan dadku fikriga ku kala duwanaan karaan kala duwanaanshaana waa in la ixtiraamo aad maasantii tan ku faraxsanahay inaynu article Tobias uu qoray caawa ka sheekeynayno artikelada uu Tobias qoray midka ugu fudud weeyaan u malaynayaa kani haddii aan xogaa yar oo opinion ka bixiyana waxaad moodaysay markaan December 2020 ku casuunay inuu yimaado abstract soo diro he was challenging us annagu you lahaa maaragtay it's kind of like a provocation siduu uu qoran yahay is provocating Soomaalida halkan degta leeyahay macnaha ma hadli kartaan marka way fiicnayd reflection fiican buu nasiiyay nuxurkuna waxa weeye uu ka hadlayaa waa matalaad iyo self representation sooma marka waxa markaad wax qorayso ama adiga nadariyo cusub keeni oo cabiri fikirkii ama qof hore nadariyadiis baad yaad ku dul istaagiyo oo sameynaysaa marka writing critically markaad si maaragtay qoto dheer oo balaaran wax u samayso oo haddana qof kala sameeyo waxa bilaabmo wax la yiraahdo school of thought fikirkii nadariyadii way balaaranaysaa marka waxay noqonaysaa wax la soo xigsado oo la sameeyo marka wuxuu runtii title-kiisa markaad fiiriso iyo qofka uu maaragtay scholarka ah uu ku dul maaragtay fikirayo waa Gayatri Spivak Chakraborty Spivak Columbia University Literature and giant scholar weeye waxay wax ka qortaa marka dadka article ay 1983 qortay oo la yiraahdo Can the Subaltern Speak marka waa hindiyad Maraykana waxaa jira marka scholarship iyo school of thought oo ka hadlaya wayna badan yihiin dadka wax ku daraa cilmigii iyo nadariyaadkii adduunka reer Yuruba yaa center ka dhigay marka in la decentering lagu sameeyo waxyaabo la yiraahdo xataa speaking back to the empire maadaama dee empire-kii Ingiriiska ahaa ee adduunka dhan gumaysanayay marka scholarship iyo scholars waxaa soo baxay oranaya world view-ga ama aragtida adduunka ee ka imanaysa global south koonfurta adduunka iyo dadka koonfurta adduunka ka tagay ee jooga waqooyiga adduunka ama madowga ha ahaadaan ama hindidii muxuu ahaa North America lagu xasuuqay ha ahaadaan markii ay iyaga cod yeeshaan ayaa maaragtay yaa waxa dhacaya marka debate marka Gayatri Spivak waa scholar weyn taasuu soo xiganaya laakiin wuxuuna provoke garanayaa inaga ayuu ina challenge garanaya oo haddii waxaan scholarly qoraal badan aan samayno inaga nadariyaadkeena la soo bixi karna inaga cabiri karna wadciga dadkeenu ku sugan yihiin waxyaabo badan markaan xuquuqul insaanka ka fikirayay oo qorayay yaa wax arkaysaa dadka qaar way baxayaan waxay leeyihiin dadkani waa lazy wax ma qoraan waa marka dadkii baa la blame garaynaya lama fiirinayo boqolkii sano ee cadaadiska ahaa
ee xaqiraada ahaa ee gacan bidixaynta ahaa dhibka generations badan baa soo gaaraya marka 2012kii baan Toronto joogay ka hadlayay xuquuqda insaanka waxaan u baahanahay nadariyo ku saabsan ya Afrika iyo Asia iyo waa la gumaystay waa xoroobeen gumaysigii wax badan baa laga qoray inaga keen uu ka duway Soma marka markii dad human development capacity goodii la caburiyo oo naturally ilmihii dhashay ee 30 sano jiray ee maalinkii malas iyo ay qabsadeen meeshan soo hana qaaday muxuu ka faa'iiday muxuu bartay muxuu fursad helay zero Soma aniga awoowayaashay baa dhulkan ka qaxay markaan la doodayo iskoolarada amxaarada ah anoo Canada joogo waxay raadaan hadaan joogi lahaa meeshii aabahay ku dhashay tacliintan helay ma heleen Soma marka concept nadariya sideen u articulate gareynaa disrupted human capacity development waxa ku dhacay weeyay kilalka xagga xamar laga yiri iyo xagga arsabo laga yiri waa meel soke laakiin waxa yaala halkan waa interrupted and disrupted human capacity development ka raali ahaada in aan af Soomaali wax wada ku sheegaynin waxaan rabaa waqtiga inaan ka faa'iideysto marka markuu dhirinayo arrintan uu Gayatri wixii soo qaadayo de western knowledge iyo dominance ka western knowledge ka hadlayso I think waxaan u qaadanayaa anigu de inagu inaynu baraarugno aynu bilowno inaynu inagu nadariyaad ka hadlaya nolosheena iyo taariikhdeena iyo dhibka ina gaaray oo aan maaragtay calaacal iyo waa waray dad baa la dilay kaliya ahayn inaynu sameeyno marka waxaan u qaadanayaa as somebody who likes to think herself inay tahay scholar challenge weeye midda labaad agency qofka bini aadanka ahi meel alla meeshii la geliyaba bini aadanka ilaahay maskax u siiyay waad survival baad sameyn waad ku noolaani ama adigu dabaqoodi u noqo ama mucaarad noqo ama muxaafid noqo waad noloshaada waad la soo bixi soo maaha marka ma jirto wuxuu ka hadlayaa agency-gooda buu leeyahay waa page-ka labaad waa la inkiray waa la xaqiray marka waxa taa uu qirayaa isagu inayna jirin lack of agency ay dadku ay leeyihiin karti ay wax ku soo saaran karaan codkoodana ku sheegi karaan laakiin caburin baa timid wuu ku qirayaa halkan iyo inayna dadku ismathali karin wuu sheegayaa marka hadal uu Xuseen su'aashiisii ku daray baa marka two opposing historiographigan little bit aniga deeper ilama aha analysis-kaas waayo dhul Soomaaliyeed oo inba mar la bixiyay oo Soomaali ay degan tahay iyo Ethiopia weeye Soomaaliya hadda intay burburtay baa narrative kala soo baxday iyo yaa Soomaali ah iyo yaan ahayn iyo laakiin Soomaaliya 60kii markay xorowday reason that ay u jireen ba waxay ahayd dhulalka maqan oo dhan in la raajiyo marka two opposing historiography iyo Muqdisho analysis-keedan kan ka dhigtay iyo Arsaba ka in la sima ma aha aniga opinion-kayga ma sinaan karaan one good example maanta waxaynu joognaa waa 15 May 15 May waa taariikh Soomaaliyeed bay leedahay Sooma magaalada aynu fadhino SYL halkana hooy u ahayd marka iyada oo xamarna ay joogaan iyo halkan la joogeen Soomaalinimo iyo halgan xorriyadoona ka dhaxeeyay marka ma gadan kara anigu sheekadan sameeysa Arsaba iyo xamar maybe aan bias xamar baan ku dhashay laakiin waa dhici kartaa qofka bini aadanka waa inaad qirtaa adiga moogtahay meeshaad ka imaanayso xamar haddaan ka hadlayno iyo 30 sano dagaalka sokeeye dhacay taa waa analysis kale ee dadkii dib loo soo qaxiyay waa mid kale iyadu laakiin markii hore haday tahay sida uu leeyahay waa aniga xoogaa way ila fududahay waa khafiif way analysis-kaas deep ma aha wuxuu kale oo ka hadlayaa uu taabanayaa waayo 15 May iyo markaan ka fakaro iyo Soomaali weyn de marka Arsaba iyo Muqdisho narrative-kooda ma sinmayaan Sooma hadaynan hadda ku saleynaynin narrative-ka wuxuu kale oo ka hadlayaa in TPLF to intay joogtay which is very disturbing TPLF to intay joogtay in maaragtay la memorize gareynayo dad suffering muxuu ahaa operation maxaa TPLF ah
toddobaatan sano oday jira anigu xerada qaxootiga oo Nairobi ku wareystay oo yiri 7 goor aan qaxay nila sanaawi iyo TPLF waa 30 sano 7 goor oo la qaxayo waa ilaa iyo Talyaanigi ya marka xoogaa waxaa moodaa waa fududahay taas ma aha deep scholarly and marka ay narrative-ka marka waxa loo simi karay narrative-ka Addis Ababa iyo kan xamar narrative-ka Ethiopia waa mid ka oranaya dhulka uu banaan yahay lama degana terra nullius waa mid ka oranaya mililku uu leeyahay hadii reer Yurub ay qaybsanayaan dhulka waa in aan ka qayb qaato ya marka framing-ka ka soo baxayay Addis Ababa waa mid noocaasa waa mid tan iyo maalinkii Soomaalida dhulka ay degto lagu wareejinayay mililig aan dawladnimo la keenin ee militarized zone aha oo si daacadnimo ah xataa dhulka hadaad qaadatay iyo dadkiisa soo inaad ka qayb geliso maaha wadankaaga lama sameeynin taa marka xoogaa waxaan isleeyahay markuu ka hadlo silencing markuu ka hadlo historiography-ga markuu ka hadlo maaragtay laba la isbarbar dhigi kara ilama aha aniga laakiin waxa interesting oo isagana maaragtay credit ku siinaya markuu silence-ka ka hadlayo kama hadlaya kaliya dawladaha iyo siyaasiyiinta scholarship-ka Ethiopian studies buu soo hadal qaadaya iyo Somali studies marka waxay ku tusaysaa in loo baahan yahay meesha laga aamusinayo dadka inay tahay narrative-ka meesha ka dhismaysa inay tahay cilmi baarista oo research-ga qoran hadda ka horna meel baan ka iri markaan bilaabay xuquuqul insaanka waxa la igu yiri niman cadaan oo Mareykan oo waliba qaar Ethiopia ka ahaan jireen safiira igu yiri ma Soomaali ba Ethiopia joogta Eritreanka waan garanaynaa marka silence-ka iyo qarintu erasure wax la yiraahdo way qarin kaliya ma tirtiraad ba timid library ba tagaysaa North America ku yaala Ethiopia aad fiirinaysaa de 100 buug oo xeelad salaasa laga qoray iyo 100 kii kale laga qoray iyo tawadaro whatever hal qof oo ka hadlaya inuu dhul Soomaaliyeed meeshan ku jiro mala siyaasiyiinna way qariyeen marka erasure-kaas uu sheegaya isagu laakiin he is simplifying aduu Muqdisho Addis Ababa isbarbar dhigaya in my opinion marka aamusiin baa jirta wuuna qirayaa taa Tobias again walaala ka hadlayay uu sheegaya dadkan halganka galaya marna inay dawladda u shaqeynayeen marna ay halgamayeen aniga taa waxaan u akhrisanayaa qofba si uu akhrisanaya dadku inay isku dayayeen inay afgartaan dhulkan iyo dawladdan lagu wareejiyo bal in la afgarto la isku dayay in la shaqeeyo markay socon weydo de waa qorigaad qaadaysaa Soomaa wax kale ku dhiman ma jirto marka wuxuuna durba u soo boodaya intuu waqti daahir ka hadlo hadana durba oo ala u soo boodaya waxa jiray Nasrullah waxa jiray Geeshki waxa jiray WSLF ONLF UWSLF dhinac walba la isaga day itixaad baa jiray marka dadku way isku dayeen dhowr goor inay la jaan qaadaan oo fahmaan project-ga Addis Ababa ka imanaysa okay internal conflicts ayuu hadana soo hadal qaadaya to me xoogaa yar waxaad moodaa inay over simplification tahay dadka Soomaalida dhexdooda waxa u dhaxeeya marka wuxuu leeyahay community-yaal aan homogeneous ahayn baa halkan joogta homogeneous or no homogeneous Soomaali ilaa Israel waagi la asaasiyay bay isdaba socotay inay qabiil yihiin waynu ognahay ma ogtahay marka homogeneity-ga iyo diversity-gu ka hadlayo ma ahan mid aniga aan deep sea ah waayo Soomaalinima dadkan ka dhaxaysa ilaa iyo mar dhaweydna Soomaalinima loo damqan jiray oo dadkoo dhan qabiil walba iyagoo le u mudaaharaadi jireen ethno-national discourse buu markaa gelaya iyo tropes-ka Ethiopian National Defense Forces-ka iyo wax noocaasa khatar baa ani meel iiga soo baxday uu leeyahay sorry page-skuna number male for decades roughly between 2008 and 2018 the conflict was between Somali special police members sponsored by the government and ethnic Somalis that supported ONLF. Now halkan laga yaabo inuu si degdeg u qoray waxan laakiin xogaa duduub baad moodaa inuu wax isku duuduubayo sababta aan taa u leeyahay inii sheegi wajibu halgankani marba soo marayay Soomaa Mele Sanaawi iyo markay is helaan
cabdi maxamed cumar waxaa bilaabatay in si conceptually iyo waxa marka narrative-ka la samaynayo narrative-kii waxaa loo bedelay Soomaali nabadiid ah oo kursiga jigjiga isku haysata. This is Meles Zenawi's framing. qadiyad Soomaaliyeed baa Ethiopia ku maqnayd dhul Soomaaliyeed oo aan weligii la develop garayno interrupted human development-kii aan ka hadlayay joogtay. All of a sudden waxaa laga faa'iidaystay war on terror agenda. waxaa la inoo sheegayaa marka wiilashii baa qaarna Malaysia laga dhigay qaarna duurka ku jiraan oo jabhad yihiin labadii wiil oo lahayd baa qori la isugu dhiibay. That is a state technology and machinery shaping your narrative right there. ma aha anaga leesinimo naga timid iyo Soomaali isdirtay iyo Somali civil war iyo ma aha. marka taana waxaan arkaa xoogaa yar oversimplification buu sameeynaya qoraagu marka ka soo bilowba cobole iyo mastermind-kii Leo Police-ka iyo 2007-kii markaan aan Al Jazeera ka lahaa meeshan Janjaweed style baa la sameeyay waayo state police baa jira state military baa jira then Leo Police baa adiga lagu sameeyay then Malaysia adiga lagu sameeyay. Like how many militarized agendas are you going to be oppressed under? marka halkaan xoogaa Tobias anigu I would say that gap he's jumping wuu ku soo boodaya tan isagoon soo dhiraan si wanaagsan. Mind you, qofka kaliya oo haysano cadaan oo ka qoraba kilalka. We need to be kind to him. Somali historiography-ga markuu uu ka hadlayana waxaan dareemay wuxuu isku qaldayaa the state agenda. Waayo Maxamed Siyaad markii horena uu xamaasadaysnaa markii dambena waa kii Mangisto la heshiiyey. So siyaasiyiinta iyo state agendaha iyo wuxuu isku khaldayaa dadaalay oo gobonimo doon ahaa oo marba dhinac loo jiidayay oo meel ay sal la galaan aan lahayn. At times can be corrupted, right? So anigu I won't take it to a civil war between Somalis laakiin dadaalay oo marba dhinac aadayay bay ahayd laakiin xamar siyaasadeeda markii dambe waxay iska ahayd danaysato meelaheeda ah. marka wuxuu kaloo oo dhahayaa dadka qaar baa laga yaabaa inay yiraahdaan low level of education ayaa sababi kara dadku inayna sheekadooda sheegi karin. Bullshit. Iskool ma u baahna madaxa in cadaadis laga saaray inaad xorriyadaada ama ka gabaydo ama ka sheekayso inaad iskool u aadood buug iyo qalin qaadad kuma xira. waxaana ku magiciisinaya marka note baa halkan ku qortaa low level of formal education. waayo tacliintu formal kaliya maaha. qofka bini aadanka ay markuu dhasho socod barashada iyo hadal barashada ka bilow waxbaad baranaysaa. marka quraanka la xafidayo dugsiga la aadaya ama alfabeetada la baranayo waa formal education laakiin bini aadan qof ah oo Ilaahay maskaxdiisa siiyo oo caafimaadkiisa siiyo iskool xataa hadaan lagu geynin. gabdhaha xisaabta ugu badiya anigu Canada markaan joogo waa gabdhahan weligood qalin iyo buug qaadanin oo ka biic mushtari Abu Dhabi iyo Canada dhexdooda xisaabtoodana madaxay ku haystaan isku ma dardari kara xisaabta isku dardaraan. marka formal education kuma xira qofku garaadkiisu inuu koro ilaa iyo xad. midaana waxaan anigu leeyahay critical analysis buu qofku sameyn karaa isagoon maaragtay iskool aadin. yaa ka aftahansanaayo ka waay aragsanaa adeersingub iyo doodaan iyo formal education ay heleen ma jirin laakiin noloshooda ay fiirinayeen world vision-kooda ay arkeen Ilaahayna wuxuu siiyay hibo. marka waxaan garanayaa markay ay TPLF oo raamale wadanka soo gashay ninaana magaciisa garanaynin la igu yiri wuu dhintay inay Soomaalida cabiraysa marba wadciga yimaada. waxaan xusuustaa gabaygan meel kale aan ka akhriyay wuxuu yiri niman raamale on rabbi aqoon on riyaal wadan cayr bay ahaayeen ilaane on rag aqoon rag Soomaaliyeed dagaalamaya meesha joogay yaa rig soo yiri macna see loola xisaabtama dadka. marka Soomaalidu always wadciga jira way rogrogayeen way ka fakirayeen way urbay isu bixinayeen. marka ma noqonayso maaragtay meeshan uu leeyahay let the Somali region speak and some people might say maaragtay low literacy waa wax anigu aan dadka horena ka maqlayo waa intellectual laziness. waayo qofka bini aadanka wadciga uu ku nool yahay tacliin u ah wuuna iska difaaci karaa wuuna ku survive garayn karaa. marka tropeskaas iyo narrativeskaas aniga waxay ii sheegaysaa
narrative-kaaga haddaad adigu samayn waa lagu samayn haddaadan qorin waa lagu qori halkanna waxaa inoo qoraya Abyssinians xitaa Oromo ya maalin dhaweyto rag baa yimid diaspora session iyo waxbaan sameynaynay diyaaradooda markay kusoo degaysa kililkan weynaantiisa aan ka yaabna yiraahdeen ya Soomaali maalin idil baan waxaan kula qadeynaynay Istanbul aniga iyo Dr. Ilyas Jijig University nin dhahaya ma ahayn Maxamed Siyaad askartiisi wixii kaara mardha lagu dilay ma yaanire ma ahayn askar muxuu ahaa jabhad ah oo xornimo doon ah iyo awoowayaashana ku dhintay meeshan marka narrative-ka waa lagu sameynaya Soomaali assalaamu calaykum Soomaalidu dib badanayo cid walba may la diriraysaa Mustafa Xaaji Cadow baa lagu yiri oo taxi arsaba ku saaran waa hadda intay maqleen Soomaali iyo Afar iyo waxa taksiilihii gaariga wada dhahaya markaas waxaan u sheegay yiri state of Oromia in uu 8 fronti dagaalka kula jiro 8 qowmiyadooda kala duwan oo Ethiopia annaguna wuxuu yiri Afar iyo Oromo kaliya aan xuduud la leenahay hadaan wax isku dhacayna waa labo oo saakama wadin asaga dhan inuu Soomaaliya ka yimid baa loo haystaa marka inagu wadan baa laynagu daray aan ina ogolayn aan ina aqoonin inaguna ismaynaan barin waayo maynan haysan fursad aan isku barro oo waxay ahayd hadaad ka guur Mustafa Xaaji Cadow aabihii waxaa lagu yiri 48 saac baan ku siinaynaa ka guur meeshan u deganaan jiray markaasuu yiri 48 sano xitaa iguma filaanin waayo dhagaxdan iyo geedahan iyo waxaad arkaysaan oo analaysan ku rari waa la xiray odagii marka wadan saasaynu ku noolnahay oo awoowayaasheen intay qaxeen weli caruurteeni denial ugu jiro waa meel soke waxaan ka hadlayno Thomas Hackman waa scholar wanaagsan weeye kan laakiin wuxuu u qoray inuu inagu gujeeyo inaga oo hurdada laga kaco waayo dadku waxay fahmayaan waxa aad qorto oo aad kaydka geliso hadalkeennan iyo iska daba wareegeenna xoogaa waa laynagu daaraya marka assalaamu calaykum